بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وأحمد علي محمد مركا وربحين كوان بدون قيبت انتربرونشيب كان كسيو انتربرونشيب horta waxa weeyaan waa cilmi cusub weeyaan oo adduunka ku soo kordhay qarnigii 12aad oo jaamacadaha ku soo kordhay marka hadii aan faahfaahin yar iyo introduction yar basiid ah ka siiyo cilmigaasi waxa markii hore dadku markay business ka sameeyaan si yaro unsystematic baa loo sameeyay oo qofku iska ganacsigu iska furi jiray laakiin qaybtan entrepreneurship waxay soo kordhisay in uu ganacsigiisa si yaro nidaam ah oo xirfad leh oo skills leh loo furo marka ahamiyadeedu waxa weeyaan ganacsatada cusub ee ku soo biiray businesska bay mahaaraad iyo skills ay u baahan yihiin oo bay siinaysaa ardayda entrepreneurship-ku muhiim u yahay ardaygu markuu soo galo xirfado fara badan buu ay faculty-gu ka helayaa مثلا human resource-ki buu ka helayaa qaybtii marketing buu helayaa qaybtii suuq-geyntu ka helayaa maamulkii buu ka helayaa qaybtii operations-ku ka helayaa waxaas oo dhan bay ardayga ka dhisaysaa marka ardaygu markuu qaybta u dhameeyo suuqana tagayo ama uu gudbayo shaqada marxalada shaqada opportunity-ga iyo fursadaha ay siinayso waxa kamid ah inuu noqdo qof xirfadiisu dhameystiran tahay qaybta xisaabaadka qaybta maamulka qaybta project management-ka haday noqoto sida loo maamulo mashaariicda waxaas oo dhan bay ka caawinaysaa entrepreneurship-ku markuu qaybta uu ka baxo markuu qaybta u dhameeyana faculty markuu dhameeyana masterskiisa wax ku qaadan karaya marketing ku qaadan karaya human resource ku qaadan karaya administration ka maamul ku qaadan karaya project management kana ku qaadan karaya marka adigu entrepreneurship kaasi waxa soo dhan bay isku jirtaa marka fikrad yar oo kooban oo ka baxsan jaamacadana ardaydu macallin diploma degree diploma ay ku qaadan karayaan diplomkana qofku isagoo iska shaqeysanayo ganacsi ayuu soo gali karayaa marka skills iyo xirfado badan bay siinaysaa waxa kamid ah sidii mashruuca loo maamulayay entrepreneurship-ku xaqiiqatan wax hore u jiray maahayn wax cusub weeyaan oo iqtisaadaadka iyo economiska adduunka imika inta ugu badan ba dadka entrepreneurska loo yaqaan ama hal abuurka ba hore wado wax badan ku soo kordhiya marka laakiin qofku kaligii haduu ganacsiga iska wado isagoo aan cilmigii iyo xirfadii lahayn oo mushkilad weeyaan marka faculty-gaan waxay ka caawinaysaa in waxa soo dhan ay ku soo kordhiso ardayga marka baahidu dalku u qabay marka qaybtan faculty-ga dalku wuxuu qabaa baahida weyn ugu qabo waxa weeyaan maanta wadankeena ilaa 70% ama laan ba ka jirta marka in shaqo cusub maanta la helna aad bay adag tahay marka laakiin faculty-gan entrepreneurship-ku waxay ka caawinaysaa ardayda in ay dhisto oo keligii ay deetana ay barto sidoo keligii iskii u shaqeysan lahaa maanta qofkaasi markuu entrepreneurship faculty-gan soo galo oo xirfada barto waxay saamaxaysaa inuu iskii keligii u shaqeysto maxaa yeelay xirfado badan buu garanayaa aqoon badan baa keligii u qabsan karaya waxyaabo badan buu qabsan karaya uma baahna cilmaanta shaqo gelisa oo waxay baraysaa CV-ga xataa CV diyaarinta waxa ma baahna laakiin toos sidoo suuqa fursadaha uga jira sidoo maxaa la yiraahdaa uga ganacsan lahaa asalka kelmadda entrepreneurship-kana waxay ka timi waxa weeyaan iskuuladii qarnigii 18aad iskuuladii Faransiiska ka jiray ardayda marka music la barayay oo waa qofka entrepreneurka oo qofka soo hor istaago masraxa deetana orchestraha iyo xirfadaha badan ee muusiqada isku dabalida marka adigu waxay ka tarjumaysaa inuu ardaygu yani xirfado badan u yeesho sidoo kale markuu suuqa u tago cid shaqo geliso ma baahna isaga waxaan maamulan karaya marka taasi ku soo kordhinaysa dadku saas ugu baahan yahay maadaama dalkii 100% ay 70 amal aan hayso qaybtan waxay ka saacidaysaa in qofku iskii u shaqo tago marka adoo iskaagu shaqo tagaya halkan cilmigii iyo xirfadii waxa u baahnay ka helaysaa taasi waa weeyaan marka takhasusaadka markuu ardaygu halkan ka baxo takhasusaadku ka helay waxa weeyaan ama master degree haduu baahan yahay wuxuu dhigan karayaa markuu entrepreneurship ka baxo wuxuu dhigan karayaa maamulku dhigan karayaa wuxuu dhigan karayaa maaliyadu dhigan karayaa wuxuu dhigan suuq-geynta marketing-gu baran karayaa operations-ku waxa baran karayaa wuxuu baran karayaa habka mashaariicda loo maamulo project management-ku baranayaa waxa soo dhan master degree ku qaadanaya markuu entrepreneurship ka soo baxo uu gudbo master degree
ختاما وحبي قيبت انتربرونشيبكو وقيبها ugu muhiimsan ee maanta wadamadu ku tartamaan maxaa yeelay maanta wadan walba wuxuu ku faana inta ganacsatay soo baxda imka wadanka yar ee Israa'iil ay dhaho 7 milyan oo kaliya qof weeyaan laakiin maanta adduunka waxay ku haystaan waxa weeyaan waa shirkadaha yar yar imka abuurmaya startup ka leeyahay iyo dadka ganacsatada entrepreneurship ka leeyahay marka wadan walba maanta qaybtaas ay ku tartamayaan oo saas iqtisaadka wadanku ku horumaraya economigooda marka ahmiyadaas uu leeyahay entrepreneurshipku wabillahi tawfiiq